soomaalida ama soomaalidu ay u badan yihiin ku yaalla magaalada Paris dadka kale halkan aan kula kulmay waxaa ka mid ah ninkan odayga oo dhowaan ka mid noqon doona dad Soomaaliya oo loo qaatay inay wax ka matalaan filim laga samaynayo barcadbadeeda Soomaalida oo ku saabsan lamaane Faransiis ahaayo barcadbadeeda Soomaalida ay qafaasheen magacaaga ii sheeg dawlad walaal magacaaga waxa la yiraahdaa Axmed Cumar Jabaan ma sha Allah waa sida aad u sheegtay waxaan ka qayb gali doonaa filimkaas insha Allah filimkaas wuxuu soo bixi doonaa bisha 9aad sanadkan aan ku jirno si aad la socoto Cabdisalaam waxaan galay tartankaas dad badan baan ku galay oo runtii dad madow oo maartay Soomaalidu ay ka mid tahay ah marka waxaan ahayn dad ilaa 80 qof ah nasiib wanaag waxa ku guuleystay aniga nin kale oo saaxiibkay ah oo hadda magaciisa loo bixiyay Mike laakiin aan maxaa loo oran jiray markii hore waxa loo oran jiray Caanamba magaciisa caadiga ah Maxamuud baa la yiraahdaa marka maadaama filimku uu ku saabsan yahay Soomaali wadada Soomaaliya ahayn baa tartanka idin galay dabcan waxa jira qof Soomaali ah oo loo baahday shakalka u yaalo marka waxa ku guuleystay nin Suudaani ah oo baasaboor Mareykan leh oo magaciisa la yiraahdo waxa la Yaaqoob oo marka dadka la doonayay maxaa laga rabay inay yeeshaan dabcan waa iska garanaysaa kulli wixii waa filim la matalayo filimka la matalaya wuxuu u baahan yahay marka hore inuu qofku u bisil yahay fahmi karo mawduuca filimku socdo waxay fiican tahay marka hore in maartay wixii waa filim marka filim hadii la matalayo qofku horta inuu u bisil yahay fahmi karo mawduuca ama buuga qoran ee filimku socdo sidoo kale waa inuu leeyahay shakalka iyo qaabka maartay filimka matalaada marka dabcan waa iska garanaysaa dadku iyagu baa maartay waxay ka fiirinayaan meelo badan wallahi anigu doorka aan tartanka ku galay waxa weeye wadaha doonta marka hore marka doonta wax lagu afduubayo marka badda markii hore waxaan ugu jiray si nabadgelyo ah waxaan ahaa maartay dadka luumaystayaal baan ahayn team adigu 6 qof baan ahayn marka qolo barcadbadeed hore ahaan jirtay ayaa maraakiibta baddu ay ka qaadaysaa dabadna anagoo badda ka luumaysanayna ayaa barcadbadeedii annaga ay noo imanayaan markaasay khasab naga dhigayaan inaan barcadbadeed noqono markaasaanu ka yeeli doonaa dabadna saasaanu hawsha ku wada gali doonaa marka qisada filimku ku socdaa ma waxa weeye mid dhaba oo dhacday mise waa mid laga alifay oo barcadbadeedii Soomaalida of course waa mid dhacday oo runtii la oran karo macnaha waxyaalihii dhacay oo maaragtay la bedelayo laakiin dadkii uu la tusayo si maaragtay film ahaan ah loo tusayo xaqiiq dhacday oo maaragtay sheeko oo kale ku saabsan ayuun baa la matalayaa dad fara badan baa waxay yiraahdaan filimada sidaasi waa qaar magac dil ku sameynaya Soomaalida inkastoo barcadbadeedu ay Soomaali ahaayeen oo laga dhigayo dad aan naxariis lahayn oo arxan daran oo aad u adag marka idinku ma kaalintaas matalaysaan waa sax weey Cabdisalaam waa runta way jirtaa arintaasi runtii waxa jiray filmaanta markii anaga buuga naloo akhriyay naloo soo bandhigay waxa jiray waxyaalo badan aan diidnay oo aan ka saxnay ninka directorka ah oo filimka matalaya sida waxa kamid ahaa in maaragtay si arxan darro ah kufsiga ma garanaysaa gabadh la socota meesha oo maaragtay xoogaa si xun loola dhaqmayo waxyaalahaas oo dhan waa diidnay sababta waxaan nidhi hadda diiniyan iyo maaragtay akhlaaqda Soomaalida lagu yaqaan arintaasi way ka baxsan tahay marka way naga yeeleen nasiib wanaag marka runtii wixii uu magaca Soomaalida wax ku noqonaya qasab bay nagu tahay inaan maaragtay arintaas aan iska ilaalino marka Axmed filimkana waxaan ka warhayaa in Djibouti lagu matalayo goorma aan baxaysaa filimka say noo sheegeen saad sheegtay waa sax Djibouti baa lagu matalayaa markii hore waxay toddobaad dabadeedna ninka directorka ah oo ninka managerka ah waxaan say ugu maqaalaa Mareykan buu joogaa arintii isaga bedelay waayo filimka ayaa wax laga bedbedelay markii hore sidoo ahaa siyaalo kale ayaa loo yar bedbedelay marka bisha 9aad ayaa hadda naloo sheegay inaan baxayno insha Allah awalkeed khayr baan ku rajeynaa Axmed markuu filimka matalo dabcan nin caan ah noqon doona anigu nasiib waxaan u yeeshay inaan la kulmo intaanu aad caan u noqon suuqiisu daba qabsi u noqonaya hadhow waa Axmed aad baad mahadsantahay ما شاء الله أدبكم سلام يا ما شاء الله nimanka dhalinyarada ah ee ganacsigan shuraakada ku ah waxa kamida Maxamed Khadar Maxamed mobiladii iyo
kafaradooda ama galkii la gelinayay iyo wixii ku shaqo lahaa dhamma meesha iga muuqda ma telefoonada kaliya iibisaan maya xawaladan waa dirnaa sida Dahabshiil Western Union MoneyGram Ria saa u jeedin photocopy telefoonadii hagaajintoodii in Pakistan hoos fadhiyo oo asagana telefoonada hagaajiyo waxyaabo badan oo ku soo kordhinaa dhalinyarada Soomaalida maadaama ay wadanka badankooda ay ku cusub yihiin luqadda kale waa ka caawinaa maadaama ay wax badan u qabana Soomaalida ee wadanka ku nool luqadda kale say ugu caawisaan markaa warqadaha la soo siinayo waxay yihiin ma yaqaanaan in loo tarjumo warqadii tarjumaano badan maadaama aysan wadanku aysan joogin waxaan isku daynaa inaan ka caawino waqtiga yariska aan hayno si aan ugu fasirno warqadihii yariska ee la soo siiyey micnahooda aysan garanayn waxa la sheegay maxamedow in qayb kale ay jirto oo ganacsigiina ka mid ah malaabtana kalunba lagu iibiyaa taas waa xawaalad un kaliya iyo telefoon yar yariisa laakiin waa meesha kaliya ee Soomaalida ugu horeysay waa meel yariisa dukaankan uu ka asaasay marka taas waxay furan tahay 2011 ilaa hadda meeshaan waxay furan tahay 2017 ilaa hadda sanad guurideeda waa bishan soo socota marka dadku waxay idinka iibsadaa dabcan Soomaali kaliya maaha Soomaa horto dukaankan Soomaali kaliya maahan kaas inkastoo ajaanibta yar yarka ay u badan tahay kan cadaana soo galayo Afrikaana soo galayo Caraba soo galayso waa international kaas laga yaabaa in Soomaalida xoogay ku badan tahay Soomaalida ku badan tahay laakiin kan waa international qolo walba imaanayso wax ka gadanayso ka dirsanayso aad u hagaajinaysa telefoonadii marka xawaaladaha Soomaalidu ay halkan ka diraan oo kale maadaama tiradii Soomaalidu soo badatay imka oo France sidii hore aad looga badan yahay lacagaha la diraana waa badan yihiin Soomaa lacagaha la dirana waa badan yihiin inkastoo ay xoogay sir tahay taas laakiin haddana lacagaha la dir way badan tahay insha Allah khayr weey maxaa kale ku tala jirtaa inaad samaysaan mustaqbalka haddii aan la yidhaahdo wallaahi waxaan ku tala jirnaa inaan dukaamada badino hadda Somal Shop 2 way kan waxaan rajaynaynaa gobolada maadaama dadkii la raraayo oo gobolada loo raraayo Paris dadka dhan wada degnaa in aan goboladina aan ku furno laamo kale oo Somal Shop 3 Somal Shop 4 macnaha dukaanka waa community badan ayaa iskugu jirto Soomaalida qabiil wax isticmaalaan laakiin annaka waxaan isticmaalnay community Soomaali ahaan oo dhan walba ka soo jeedo si aan isku dhaxgalno Soomaalidina aan heshiis dhalinyarada markaa shuraaka ku tihiin hadda aniga ninkan Chef Aways yar kale xamar jiro Xasan Deeq yar Yusuf Laay maanta iskool ku maqan oo asagana luqadda xoogay ku cusub tahay oo luqadda waqti bal geliyo marka afar baan laakiin dadka kala guud way badan yihiin maxamedow Soomaalidu inta badan shuraakada kuma fiicna iyo in ganacsi ay isku darsadaan idinka sidaba idinku suurta gashay muddada inta leeg wada shaqeysaan anaka waxay nagu suurta gashay qolo walbo Soomaalida ma u fiirin qabiil waxaan u fiirin Soomaali ahaan dad isfahamsan qabiil walba ka soo jeeda nooc walba ay noqdaan intii isfahmi karto oo wax isku darsan karto wax badan aan ka fikirnay inaan heshiiskaas aan subino waan isdhex galnay nin walbana waa maanta ma sha Allah dukaanka Soomaalida ee nooc walba ay ku jiraan annahay alaabo fara badan oo qiimo leh halkan iga muuqata laakiin haddaan su'aal kale ka weydiiyo tan wada shaqayntiina afartiina waa markaa labada ganacsiga ka shaqeysaan mise qaarkiinba hawlo kala qabtaa wallaahi afartiina ganacsigaas ka wada qabanaa laakiin hadda ganacsiyada ilaa Soomaaliya u gudbinay hadda yarka Soomaaliya ku maqan wuxuu soo indhaynayaa qaybta Muqdisho sidii aan u ballaari lahayn marka taasna ku sii rajaynaynaa wadankiina waxa inta ka faanay aan ku celino wadankii maadaama uu hadda soo koraayo aan fikradaha inta ka qabanay aan wadanka geeyno fikrado badan oo wadanka laga ogeynaa inta ka aragnay marka xaggaas inay ka soconaan aragnay wadankan geeyno marka ma la oran karaa waa la dhaafay waqtigii la oran jiray qofkaasi halkaas uu degay oo ganacsiga uu ku leeyay oo adigoo halkan degan Paris ama France ayaad Soomaaliya ka shaqeyn kartaa si fiican Soomaaliya hadda waa ka shaqeynaa oo shaqadii waa hadda way bilaabanaysaa mar dhow marka wadan meel ba ka joogtid adduunka waa ka shaqeyn kartaa wadankaada aad joogtid wadan kale ka shaqeyn kartaa labadaba way guul baan idin rajaynayaa aad iyo aad baa mahadsantihiin mahadsanid adiguna sidoo kale aad iyo aad baad mahadsantahay dhammaantiin waan idin salaamaya waxaanu imika joognaa meel ka mida meelaha ku yaalla bartamaha magaalada Paris ee xarunta waddanka Faransiiska oo weliba ka mida meelaha dalxiiska ugu faraha badan leh ay yimaadaan ee ay soo booqdaan sanad walba waxaa lagu qiyaasaa in magaalada Paris iyo guud ahaan dalka Faransiiska ay soo booqdaan ilaa 80 milyan oo qof
oo ka kala yimaada daafaha caalamka kuwaasoo tira ahaan kaba badanba dadka ku nool waddanka faransiiska oo dhan waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta haddaba bridgekan ama buundadan ay u soo booqdaan dad fara badan oo kuwaasi ka midi waxaa halkan ka muuqda qufullo fara badan oo bridgekan ku xidhan kuwaasoo bridgeka gebi ahaantiisaba sanoo kale u suran oo weliba mararka qaarkoodna laga furfuro lamaano kastoo isjecel ama isguursadaa halkanay yimaadaan dabadeedna duntuna iigu kaa xidhan halkii soomaalidu ay ka odhan jireen oo kale bridgekanay ku xidhaan qufulkaa dabeedna furahana waxaa lagu tuurayaa webiga laba ninoo haddaba ka mida soomaalida muddada ugu dheer joogay magaalada baris waa mustafa xaaji yuusuf iyo axmed bile ayaa iiga warramay goobtan iyo goobaha kale ee dalxiiska ugu furaha badan le ay soo booqdaan ee magaalada baris mustafe markaa ma kuwa isguursaduunba mise waa kuwa isku cindanna way ku xidhayaan kuwa isjecel baa ku xidhaya kuwa isguursadaa ayaa ku xidhaya markaa wuxuu kaga duwan cajiibkii waxa weeyaan markuu qofku halkaa uu ku xidho qufulkii furii webigu ku tuurayaa markaa labadaa qof hadhow hadday kala tagaan anuu sida looga furayo garba maayo bahalkii la luuhi laakiin dee looguma talagelin inay kala tagaan soo ma mar haddii furaa la tuurayo waa abadiya furaad waxa weeyaan waa duntura igu kaa xidhan markaa waa sayfay waa arrin mucjisaa soo ma aad bay mucjiso tahay runtii marka xagga soomaalida loo eego laakiin wax macno badan lama noqonayo baa laga yaabaa hase ahaatee dad badan oo adduunka ka mid ah oo soomaalidana ku jirta ayaa meeshan xiisayn jiray qafiladan hadda aad arkaysa way yar yihiin mar baa lagu xiray qafillo intaasoo tan ah kabacdi buundadan oo dhan way duntay dib baa looga saaray qafiladii laga tuuray hadda intaan yar ma ahaan jirin marka in ka badan bay ahaan mar walbo ay bataan waa laga dhibaa laakiin markii hore sanado badan bay socotay kabacdi culayskii qafilada iyo waxaa kala weynaaday culayskii buundada waxay noqotay buundadii marka inay maadaama qafilada ka miisaan weynaadeen buundadii waxay noqotay inay dunto marka kadib marka mar waa la xiray muddo sanad meelahaasay xirnayd baan u malaynayaa dib baa marka loo bilaabay in dadku yimaadaan mustafa markaa ma dadka faransiiska ah ayuunbaa ku xidhaya qufulka meesha mise dadka soo booqdana qaarkoodiina waa sunaya inta badan waa dadka soo booqda oo dad baris maadaama ay ku caan tahay waxaa la yidhaaho jacaylka ay tahay magaalo romantiga dadka yimaada ama dhaqaaluhu u saamaxo inay yimaadaan waxay isku dayaan inay halkaa ay kaga tagaan xusuus abadiye ah oo kontraadkooda markaa halkaa ay isku qufushaan marka dadka ugu badan aan waxaa odhan lahaa waxa weeyaan waa ajnabiga ma aha maxaa idhahdaa dadkan faransiiska ah goobo fara badan oo kale ayaa webigan ku dhararan horta Notre Dame baa la yiraahdaa ereyadan webigan marka wuxuu ku hareersan yahay Ile de France in magaca loogu daray baan malaynayaa wuxuu ku maaragtay Paris oo dhan buu ku soo wareegaa marka waa webiga ugu weyn ee Paris ku wareega weeyaan Notre Dame waxa loogu magac daray kaniisadan weyn ee 800 oo sano meelahaas jirtay marka waa sayidkan oo dhan oo xataa Tourifal ku dhow yahay Musée de Louvre ku dhow yahay xaruntan intaan oo dhan in adigu ereyadan oo dhan waa ereyada ugu badan ee dalxiiska waddanka Faransiiska loo yimaado mararka qaarkood xataa Soomaali baad ku arkaysaa sida Ingiriiska oo kale ka yimi walow ay u badan yihiin Soomaalidu meelahan meeshan caruurta la geeyo ii sheeg Disneyland oo kale ay u badan yihiin laakiin cid walba waad ka helaysaa halkan Mustafa waxaan jeclahay inaan su'aal kale ka weydiiyo arrin aad mar dhaweed ka dhawaajisay Paris horta sideedaba magaaladii jacaylka maxaa loogu bixiyay tani ma la garanay taas way inaga horeysay taas way inaga horeysay laakiin waxaan malaynayaa daniyo wallahi taa ka jawaab kara Faransiiska u yara jaban miya laakiin Faransiiska waxaan malaynayaa malaha wuxuu ku wanaagsan yahay waxyaabaha wax waliba dad walba waxbay reputation ku yeeshaan oo magac ugu baxaa marka maadaama taas inaga horeysay halkii rarkiisa taa inaga daa Abdisalaam oo kaniisad weyn oo Notre Dame la yiraahdo halkan ku taala halkan inaga dambaysa waa meel waa kaniisad weyn oo waxa weeyaan runtii aad iyo aad u caana waxa ku yaala museegii la oran jiray Louvre baa ku yaala halkan musee kale halkan oo Kidoxé la yiraahdo ku yaala marka runtii museeyo badan baa ku yaala meeshan waxa weeyaan waa magaaladii hore Paris waa Paris meeshii ka bilaabatay weeyaan ee centerkeedii ahaa weeyaan marka runtii waa sida uu sheegay maxay raadayay Axmed Bilana waa meelaha ay tourist ugu badan yihiin oo waxa ka qtilaatan
marka runtii waa magaalo taariikhi ah isaad sheegtayna dadku ay aad iyo aad u jecel yihiin imaatinkeeda waxay ku jirtaa magaalooyinka adduunka ugu qadiimsan xaqiiqada talyaaniga magaalooyin ka mid ah iyo Paris waxay ka mid yihiin taariikhaha markii laga reebo Greega iyo meelo la mid ah Yurubtan galbeedka meelaha ugu taariikhda dheer bay Paris ku jirtaa xataa waxa la sheegaa design-ka qaarkiis design waxa jira 3 angle oo nin Salanzaq meel yiraahdo ku taal waxa loogu magac daray ninkii sameeyay waxa la sameeyay baa la yiraahdaa 200 sano ka hor haddana design ahaan sida loo sameeyay waaga engineering ay sameeyeen waa wax aad ilaa hadda loola yaabo markii kor laga arko ama tuqiifalka la saaran yahay marka taariikh dheer bay leedahay oo aan waraysi yar lagu koobi karin Paris horta haddii la yidhaaho taariikh ahaan Paris waxa la degay maxaa yidhahdaa ilaa 3 siècle maxaa loo leeyahay ciise ka hor marka waad garanaysaa waa runtii taariikh aad iyo aad u dheer weeyaan laakiin 300 sano ciise ka hor marka waa magaalo runtii ilaa 200 sano waa ka badantay aad bay uga badantay magaalooyin fara badan oo sida Paris kaloo caasimada oo Yurub taaba labadiinuba aragteen maxay kaga duwan tahay ee gaar u abaaran leeyahay Paris Mustafa والله عبد السلام أنا باريس ربتي آدي أتبع نشعل هاي ومقالة أنا ضبع هنا إن مقالة كله بدل أمريكا أتبع حي سوكر توا إن هذه الشيء قرشة سنة باريس ويا نوب بني ذات قرشة سنة ومقالة هذه الشيء هذا كسو حياة بدن أخرج سجلية كلتا أنا باريس كنت على أنا وحين هذا ثمان سنة شوكتي هذا تسنة شوكتي واحد اسمه الساون هذا ما أنت تمي مركا مقالة ربتي بورين دريبي سماها quruxdeeda iyo sida ay tahay iyo sida ay waliba habeenkii marmarka qaar kood markaad lugeynayso waxaad soconaysaa meeshan yaa waliga yaa maxay raada iska joogoon marka runtii waa magaalo aad iyo aad aan u jeclahay ku raaxsanteedo wallahi anigu Mustafa isagu yaraan buu kaga yimid dhulkay marka inta badan waxa jira waxa la yiraahdo home sickness anigu inta badan maskaxdeeda waxa ka weyn oo ku badan dalkii Soomaaliya marka wax walba iyo wanaag walba ay leedahay ima muuqdaan in badan ima muuqato laakiin reer Faransa iyo Paris ba waxaan ku amaanayaa inay yihiin dad xadaariyiin ah oo aan cunsureed lahayn dad lagu dhex noolaan karo magaaladan inaba dareemayn in lagu faquuqayo magaalo aad wax walba ka helaysid walow aysan magaalo maaragtay Soomaalidu ku badnayn ay tahay oo 10 sano ugu dambeeyay Soomaalidu soo gashay sida Yurubta kale markii aad tagtid waxaad arkaysaa Soomaalidu inay aad u dhex galeen laakiin fallaahi alxamdu muddadan dambe Soomaalidu waxay ka mid noqdeen wadamada Francophone la yiraahdo oo Faransiis ku hadla sababtuna waxay tahay 10,000 oo Soomaali ah in ku dhow yaa degan hadda oo 10 sano ugu dambeeyay soo galay marka waxaan oran karnaa Paris inta ka dhimaneed waxay ahayd in community Soomaaliya la helo taasna hadda waan haysanaa Paris marka waxaan oran karaa magaalo dhameystiran way dhinac walba marka Soomaalidana lagu daro ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan idin weydiiyo Faransiiska waxa lagu yaqaanaa marka ay khaasatan joogeen wadamada kale ee ay maamulayeen inay kaga duwanaayeen Europeanska kale iyagoo dadka dhex gala oo aad ula falgala oo la macaamila oo la noolaada marka iyaga loo yimaado Mustafa waa dad sidee dad furfuran ma yihiin absalaana horta runtii Faransiisku ma aha dad very conservative ama dad xirxirn maaha waa dad runtii si fudud loo dhexgeli karo oo si fudud loola hadli karo oo si fudud maxaa yaraahdaa wax loola wadaagi karo marka iminka Ingiriiska oo kale waxa laga yaabaa inay aad uga xirxiran yihiin oo xataa jaarku maaragtay aanay aad isu dhexgelin laakiin dadka Faransiiska runtii waxaan odhan karaa dhinaca isdhexgalka aad iyo aad bay ugu wanaagsan yihiin Abdullah waxaan ku darsanayaa Faransiisku labada wadana waxa la yiraahdaa Yurub friendly-ga ama soo dhaweynta iyo isdhexgalka iyo ku fiican oo aan ummadda iska faquuqin waa Faransiiska iyo Talyaaniga inta badan labada wadan weeye sida Yurubtan Faransiisku marka waxaan oran karaa waa dad friendly waa dad runtii aad u ah maaragtay dad saaxiibtinimada xaggeeda ku fiican soo dhaweyn fiican waxaad ka garan kartaana taas markaad magaalada dhex maraysid qofka Faransiiska idinkoon is aqoon inaad sheekaysataan oo maaragtay wax wada cuntaan oo waqti yar gudihiis isku barataan aad bay u fududahay
laakiin waad garan kartaa Yurubta kale waxa weeyaan inaad saddex gashaan qof European ah aad bay uga adag tahay marka Francisco waa friendly baan oran karaa boqolkiiba boqol Ahmed aad iyo aad baad u mahadsan xaafadda Soomaalidu ay ugu badan yihiin magaalada Paris ee xarunta waddanka Faransiiska ganacsiyada kale ku yaalla waxa kamid ah makhaayaddan iminkaan ku sugnahay oo cunto Soomaalida lagu sameeyo oo magaceedana la yiraahdo Mandeeq makhaayaddan waxa iskale ninkan oo Mubaarak la yiraahdo Mubaarak oo magacaaga saddexanii sheeg horta Mubaarak Faarax Ali Mubaarak goormaad furtay makhaayadda hadda muddo 2 sano meelahaas ku jirtay ay ku socotay intii furantay imika marka waa markii ugu horeysay maqaaxi si caadi u shaqeyso oo Soomaaliyeed halkan laga furay cunto Soomaaliga sameeysa marka waa intan dambe ee Soomaalidu ay ku soo bateen magaalada Paris waa intan dambe ee Soomaalidu ku soo bateen markii hore wax yar baan ku deganaa wadanka Soomaaliya oo qof meel degan yahay oo dadka Faransiiska la iska dhaxgalay muddo intee lag baad u joogtay wadankan Faransiiska hadda imika waa 10 sano sanadkii 10aad imika gartay marka macaamiishiinu ma Soomaaliyoon baa inta ugu badan waa Soomaali Ethiopian Sudan dadka kale ee Faransiiska way yimaadaan Carabta way yimaadaan marka wadad isku jira oo dadka xaafaduna aad u jecel marka cuntada Soomaalida dhadhamiyaan maalin walba ku soo noqonayaan waxay oranayaan cuntadii baan u baahanahay especially sambusaha iyo waxa aad u jecel ay cunaan marka cuntooyinka sameeysan oo dhammi waxa weeye cunto Soomaali cuntooyinka cunto Soomaali way badan yihiin waxaan ku darnaa kale cunta Ethiopian oo canjeerada xabashida iyo Ethiopianka ayaan ku darnaa oo sameeynaa iyadana gartay wadanka Faransiiska waxa aad loogu amaanaa dhinaca cuntada oo adduunyada caan kaga yihiin taa Faransiiska ma sameeysan iyada may wali cunto Faransiis ma aan sameyn laakiin insha Allah waan ku tala jiray inaanu sanadaha soo socda ama sanadkan soo socda gudihiisa aan ku soo daro cuntooyinka dhaqanka ah Faransiiska xalaasha la jecel yahay loo isticmaalo gartay markaad eegto ganacsiyada kale Soomaalida ee xaafaddan imika aad joogtaan siday Soomaalidu ku yihiin ganacsiga imika wallahi way aad bay Soomaalidu dad furfuran oo ganacsiga aad iyo aad ugu fiican oo maxay tahay imika iyadoo ay ku cusub yihiin ay haddana ganacsi iyo kala duwan oo badan la maxay tahay si xawliya lagu dhaqaajiyay marka markii hore hindida ku farabadeed hadda waxaad oran kartaa Soomaalidii waxa la tartamay hindidii meesha haysatay oo meel kasta oo hindi deganaa waxaad arkaysaa Soomaali bay la soo wareegay meelo badan ilaa 7-8 meelood imika oo dadka hindidu deganayeen Soomaali baa ka saartay marka waa la u fiican yahay dhiirigelin fiican way ku dhiiradaan aad iyo aad Mubaarago laakiin sida Soomaalida caadada u ah makhaayadaha waa la iska soo fariistaa deedna muddo dheer baa la fadhiyaa ama maalinta dhan dadkuna aad bay u buuqaan dadka ajnabiga markay idin yimaadaan miyaanay arrinta ka boodin may waa yara dhib way wan yara Soomaalidu way yara qayliyaan buuqaan fadhi ku dirir marka fadhi ku dirirka jira oo intay soo fadhiistaan baad wad garanaysaa Soomaali sida loo sheekeeyo la kaftama la sheekeystaa qof waliba meel ka imanaya uu doonaya maanta qofkii markuu meesha wax ku cunayo maanta oo dhan si fadhi ku sii sheekeeyo taas yara dib way keentaa laakiin ajnabigan kale ee Afrika ka yimi Afrikaanka ah iyaga ma dhibto taas dadka cadaanka ah way yara dhageysanayaan buuqan iyo qayladan iyo luqadan ay fahmeen lagu wada hadlayo Soomaaliga ilaa luqadii Faransiiska lagu wada hadli maayo taas waa in yar way ka yara qaloodan dadka ajnabiga ee cadaanka ah